بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد آدي بان أغفر حسن هاي فردقا بركيسا يسودويتن ديران يوجيدا قيمها بدن يسور جيدا يمسكن بوحة إذ إلهي فاتكيس بقودتين سيقود يسيقار هانياتبا وإذن مهنقايا وأنا إذن سلام يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كدب قفك مسلم كا وأنا إيا وعدي كما درقه وحو 10 سنة إلا 20 سنة كل رقمية إلا حسوسيه اسكباب هاي تذكير كي تنبيه مركا ومن حق المسلم على المسلم عاوى مسجد الرحمة عافض باشال كويا الله وحان جعليستي إنان إذا حسوسيه خلق وناكسن قيميس الخلق الحسن دقنك وناكسن طبيعة وناكسن قيمها الشريعة نقول هذا الدين كنا iyo sida muhiim ay u tahay hawsha ayada qof walba inuu isku dayo inuu ka dhaqan dhigto waxa muslimiinta isku xidha naarna lagaga badbaado ilaahay rilihiisana lagu kasbado waa al-khuluqul hasan nabiga ilaahay wuxuu ka yiri wa innaka la ala khuluqin azim salafku markay fasireen waa ad-diin bay dhaheen waa ad-diin baa loo jeedaa dhaqanka diineed dhaqanka wanaagsan ee ilaahay iyo rasuulkiisu tilmaameen oo fuliso oo ku hagaagto gobonnimada aad ku dhaqanto wixii gunnimo aad ka leexato ayaa khuluq cadiim ah marka al-khuluqul hasan shay aad iyo aad u qiimo badan weeye diinteenna meel sare kaga yaal muslimiintuna la doonayo inay ka dhaqan dhigtaan nabiga markii la weydiiyay xadiidkii nawaas ibn sam'aan id garanayseen ee lay nabi allah birri wanaag iyo sama muxuu yahay wuxuu ku jawaabay birrugu waa xusnul khuluq waa tabiica wanaag waa dhaqan wanaag waa maydhax macaani wey ruuxaasa marka la odhan karaa waa khuluq xasan uu leeyahay culummadu marka qeexitaano kala duwan bay ka baxshaan khuluqa xasanka waxaa la yidhaahda sidii doona ha noqotee waa inaad waxna quudho dulqaadna yeelato khuluqa xasanka waxaa weeye inaad ummadda wax u quudho nin lex jecel xun aadan noqonin wuxuu heli karo wax ka baxsha wejigiisu furan yahay gacan furan ummadda dhibkeedii wixii ka soo gaadhayana u adkaysto u sabra dulqaad u leh badlu nada waxtimaalu ladaa bay wadaadda ku gabagabeeyaan waa inaad dhibaatada maaha dhibkaada inaad ceshato keliya waa inaad muslimiinta dhibkooda waxa kaa soo gaadhaya rafaada xadguduba aflagaada marin xumaa waxaadan ka mudnayn baa dad badan kaaga imanay inaad u dulqaadato gegsi yeelato dulqaad yeelato sabirto wamaca daalika wixii aad tari kartana aad tarto muslimiinta khuluqa xasankooda aad ku tacriifiyeen nabigu waad ogtihiin saxaabadu markay tilmaameen waxay yidhaahdeen lam yakun faaxishan walaa mutafaxishan nabigu ma ahayn axad afxun dabci qallafsan aan dhaqan wanaagsanayn ma ahay mid iska doondoono iska raadiyana ma ahay walow kunta faddan ghalida alqalbi lam faddu min xawlik ilaahay baa ka yidhi khuluqa nabiga ilaahay ku barakeeyey ayaa la doonayaa innagu inaan dhaqan ka dhiganno dabeeco wanaagsan dulqaad gegsi macaani inaad muslimiinta hawshaa kuga dhaqantaa la doonayaa ibnu cumar asagu way u saalin wuxuu odhan jiray khuluqa xasanka waa shay hayin ah dabeeco wanaag wax fudud weeye ما ودي بدنا هدي لا اسكو دايو محو ياهي حورن جري وجه طليق وكلام لين وجه فرن وبشاشه وكسو دوينيه اي هذا المعاني ودبع سنبوي انت اساسو كو غبغبي وجه فرن هدي لغا هيلو هذا الكادون امده ودبعسن ويقول الناس حسن اين او نقدو طبيعتي وناكسد waa la helay buu leeyahay qalafsanaantu wax badan ma tarto khayrna ma keento guul lama xaqiijiso muslimiinta loo dabacsanaado dabcigeena wax ka bedela dib iskugu noqda hebel uu adag yahay uu qalafsan yahay inaga daaya looma tagi karo mar hadii lagu yiraahdo hawsha ma wanaagsano Soomaalidu waxay yiraahdaan waji furan baa la galay albaab furan lama galo ama guri furan lama galo qofka wejigiisa oo ah turjumaan iyo cinwaan
رقن كيسا يقاب كوسو دويا عوانوا إلهي سبحانه وتعالى خلق حسنة أنه إرزاق وطبع حنا ليتنا أنه قبت بعدين النبي عليه الصلاة والسلام وحيري كوا إذن كوا إن من خياركم أحسنكم أخلاقا dadka idinku wanaagsan idinku gobsan alla idinku dhaw waxa weeye kuwa idinku dabci wanaagsan khuluq xasana diinto dhan ku dhantaay iimaanka ku dhan wax ka maqan ma jiro subhanahu alayhi salatu wassalam wuxuu yiri oo la weydiiyay nabi allow aakhira marka la tago miisaanka xasanaadka shayga la saaray oo ugu culus muxuu yahay maalinka loo baahan yahay nin walba wax yar in loo saaro miisaanka kifada ميزانك آخر لكين دون عماش اللي هو ميزامي نبي الله شيء وأقول علوس مسلم كبد بعد محوي هاي بالله وحلو وحسن الخلق طبيعة وناكسن رقم وناكسن كاسر دي اللي صار ميزانك دو هجاجي إلهي وحون عبي أي بوصوبانه ينك أفكحون يعرب كدير ومدك واحد قد بقى حق الملك ردعة عيابك ذمامك ذامك وحول بعاية نقدنا قد كبدان عيبها مسلمين تي مسلمات دبقلي او شهد الله اسكغ هلال النبي عليه الصلاه والسلام وحيري قفك طبيعه وناكسن اسغو اسك عباده ير اون عمل بدن بلا ايمانين ايا waxa la siinaya nin habeenkii oo dhan salaatuul u taagan maalintii oo dhan sooman maalintii oo dhan nin sooman habeenkana qiyaamul layl naftu kaga baxday waxa ka khayr badan qofka muslimka ay cibaadada yar لكن رقم كوناكس هبل مية قف مسلم وي هبل كورم وانين الدنيا سومالي وحي كو قرايا ان كان اهل الجنه يادون على النار طاي هبل وانين اخر داي كو يراهدان وا maxay nin fiican ba tahay nin adduunyo day ku dhahaana waxay ka afgobaadsanayaan inay ku dhahaan waa ahlu naar way iska ilaaliya waa in lagu hebel waa nin dabci wanaagsan waa nin islaana waa nin aakhiro ayaa lagu badbaadaya hawshan kale khatar weey aad la iskaga ilaaliyo nabiga waxa la weydiiyay alayhi salaatu wasalaam oo leeyahay nabi allah waxa noo sheegtaa amalka ugu badan ee janna lagu galo iyo amalka ugu badan ee naar lagu galo nabi wuxuu yiri amalka ugu badan ee muslimiintu janna ku galahayaan waa husnul khuluq dabciga wanaagsan tabiica wanaag وجه فران هذا الدبعسن هذا القيمة بدن وحاد هيصود وحكب بحسو مسلمين تضرب كذا كقيب قضاته نين أهل وين أظن قطع مسلمين كذا جنة كوجليسا وحقوب بدنا نرلو قلنا والفم والفرج وأفقد إلى شو إذا عرب دير ومدة كحد قد بيا وإن إدب الله هاي ويخلق له كردون طي أون لا تربيينا إيوه حبن كذا ترى كود زندي وحمان تكيل شو أف iyo xubinka taranka la eeda oo nar lagu gala jannada waxa lagu helaa tabiicada wanaagsan wajigiina fura muslimiinta bashaasho u muujiya dadka kuma deeqi kartaan xoolo iyo adduunyo ee waxa ku deeqi kartaan tabci wanaagi waji fura nabiga alayhi salatu wasalaam innakum lan tas'u an-nasa bi amwalikum laakin waxa ugu waasع noqotaan bi akhlaaqikum روح كستو مسلمة أو دبان من عند دبانين كل وجه وناكسن وجه فران قاع سو دوين إسلامي أهلي ما ضموتشين كرتا لكن حول هذا تغير بيجاري كرا ابن المبارك أبو عبد الله أبو عبد الرحمن المروزي شيخ الإسلام أيه حلويلي هذا الكلام نقول بعدين وحنوصو كوبتا حسن الخلق وحياه أظن وحبا شرحين هل كلمة ندبها الليل كلمة واحدة في حسن الخلق بانكارنا وحول ترك الغضب ترك الغضب وحدون إنساننا هل ويد بس كسو الرياض طبيعة وانا ها عروني وحيسي انتنا هيا وحيلقب ديار إن كان بالميت كان صاحب اللي وايا وجه فرن على الآن وواحد قد بدي كسر لوسمه ترك الغضب عرضوا تسكديسو على فضيتك حناق دويده لبودك هوشاس كإلالي بول ضاد على كفقاته طبيعة وناكسن إلهي باكو سيني نبي محمد عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا مسلمين توحى أو إيمان بوحة أو إيمان لما يسترن أو إسلام وناكسن متك أطبع في عن طبعي حنا دوام هاي وحدة الغضب حدة الغضب قعان أتكي وجه معبوسة طبيعة حمي
dadka dhibkooda loo dulqaadan yari haddii xusnul khuluq sidaa lagu tacriifiyey waxa ka soo horjeedana waa dabeeca xun weeye dabciga xuni dhibaato badan buu keenayaa muslimiintu duminaya dacwada ilaahay iyo ducadu hor istaagaya adduunka oo dhan buu kharibaya waynu kala dhimanaynaa qaraabo dumis reer bi'iyo weeye dabciga xun sayidina ibn cabbaas wuxuu ka sheekeeyey nabi reer banu israa'iil ahaa buu ka sheekeeyey oo ilaahay soo diray oo ummadda diinka gaadhsiin jiray laakiin haweenay dhib badan oon dabci wanaagsanayn buu qabay ilaahay buu in badan bariyey inuu dabcigeeda u hagaajiyo nabigaa ducada laga aqbalo waxaa la yidhi 3 ducaad leedahay 3 goor 3 jeer waxaad ilaahay weydiisato maanta waa lagu siinay weydiisaa leh markaasuu yidhi ilaahayow intuusa asagoo hadlin markii uu u sheegay ahalkiisii islaanta u sheegay ilaahay wuxuu ii dooransiiyey 3 duco oo haddaan mid walba ilaahay weydiisa la isiinaye maxaan ka dhigaa waxay tiri intaad wax kasta u kaadiso aniga iga bilowbay tiri ilaahay inuu i qurxiyo oo haweenka u quruxsan iga dhigo dabcigana ii hagaajiyo ilaahay ii weydii wayba fiicnayd ilaahay buu baryay islaamihii islaanta u quruxsanayd baa laga dhigay dabcigeedana 100% baa la dhamaystiray markay xooguhu qurux iyo bilic yeelatay gobonimana ay ku dhammaystirantay bay nabigu ku kibirtay nabigu weli labadii ducee dambe u dhiman yihiin labadii xabadood dambe weli muusan ridin wuu sugahayaa bal inay waxay samayso kibir bayba ka qaadan nabigay ku kibirtay reerkii quruxdeedii iyo bilicdeedii wanaaggeedii baa way ismahadisa dabcigu wanaagsanaa ee la siiyeyna wayba ka sii dartayba kibirkii iyo cujbi baa galay quruurku waa ku baabiinaya markay nabiga nafta u keentay yaa wuxuu yidhi ilaahu tan wayba kibirtay ay ka dhig ayba ha noqoto wuu habaaray ay bay noqotay ay wahwaha leh oo ilka dhaadheer islaanta hadda quruxsanayd sidaasaa loo galay ibn cabbaas baa ka sheekeeyey waa qisa ariif wiilasheedii oo waaweyn ee gabdhaheedii baa soo qamaamay waxaa le aabbow sidan kuma noolaan karo waa ceebaan naga hadhaynin hooyadiin baa ay ahayd oo ilka dhaadheeray adduun kuma noolaan karo ee waxaan kaa codsanaynaa ilaahay noo baryo mar saddexaad in hooyo lagu soo celiyo bini aadamnimadkeedii lagu soo celiyo ama ha fool xumaato ama ha quruxsanaatay waxaan kaa codsanaynaa bal ilaahay bari in dib loo soo celiyo labadii duca nabiga muuse kama tegin mid wuxuu ku duceeyey ilaahay inuu wanaajiyo waa loo wanaajiyo markay kibirtana wuxuu ilaahay ka bari ay inay noqoto 2 kaar baa nabiga ka gubtay waxaa u hadhay hal xabbaa u hadhay xabbadina maxay ku baxday ilaahay uu bini aadam ku soo celi ilaahay uu bini aadam ku soo celi ilaahay buu bariyay bini aadam bay noqotay howlaheeda hore ayay ku soo laabatay idan khuluqa aan wanaagsaneyn iyo dabci qallafsanaantu khatartaasay leeyihiin wax badan bay ku dhaafinayaan khayr badan bay ku dhaafinayaan ninku haddii dabci wanaagsan alla siiyo oo khuluqa rabbi kuu hagaajiyo salaad badan baan lagugu dhaafaynin qur'aan akhris badan baan lagugu dhaafaynin sadaqo badan baan lagugu dhaafaynin ilaahay dabciga iyo akhlaaqda noo hagaajiyo sayyul akhlaaq iyo mafaasideeda iyo safaasibta Allah ka naga badbaadiyo qisada waxay salafku u keeneen ahlu kitaabka kulli ka soo guuray ama waa dhaxal nabi waxay u keeneen in lagu cibra qaato wax badan buu ku seejinayaa dabciga xun dabci wanaagga ha la iska doono shayga aadan lahayn ee dhaqan ku ahayn haddaad iska raadiso waaga dambe dabciga ku noqonaya waxay wadaaduhu yiraahdaan 40 waa bari oo xidhiidh ah ninkii dabci uusan lahayn iska raadiya dabciga u noqdaa adoo bakhayl iska gacan adag haddaad go'aansato waagii bariyaba inaad wax sadaqayso wax la baxdo waaga dambe sadaqada baranaysa carabkaad la bixi deeqsi baad noqoni dabeecooyinka wanaagsan marka ku dadaala nin walba qaab rabbi u abuuray mawaahib baa jirta ghariisa ah iyo muktasabaad khuluq wanaagsan iyo dabci wanaagsan oo la kasban karaa jira niman deeqsiyaala oo geesiyaala oo gobonimo ku dhanta hadda la saaxiibto muddo la joogto ayagoo kala noqonaysa markaad u yartahay waad soo yarbaasi darajo fiican baad soo gaadhi haddii aadoo iska romba balaayaa la dariistana dib bay kuu ridahayaan way kula degayaan ninba ninku ka wanaagsan yahay la saaxiiba idinkuna wanaag iyo khayrka ku dadaala wakii nabigu oran jiray calayhi salaatu wasalaam
guri ku yaala ardada jannada ardaageeda banaankeeda kore ku yaala waxaan u ballan qaaday ninkii iska daaya dooda iyo muranka hadduu doono xaqba ha ku taagnaadeen guri ku yaala jannada dhexdeedana waxaan u ballan qaadayaa ninka beenta iska daaya haba kaftame nabi wuxuu dambaysiiyey jannada meesha u sarreysa guri ku yaalana waxaan u ballan qaadayaa liman xasuna khuluquhu wixii oo dhanba jannada meesha u sarreysa waxaa lagu helaa dabci wanaag akhlaaqdoo la wanaajiyo la suubiyo nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii odhanayay dadka iigu dhow aakharo aniga nabi maxamed jannada meeshaan ka galay iyo halkaan ka degay dadka ila darsay iigu dhow waa dadka ugu dabci wanaagsan muslimiinta alkhuluq alxasan nabigaa lagula darsaa maxaa yeelay waa dhaqankii ambiyada waa kii rususha waa kii khaatamu alambiyaa wa ashrafu almursaliin weeye darisnimada nabi maxamed waxa lagu helaayo wax weyn weeye oo aad iyo aad in loogu dadaalo mudan in la barto mudan kutubta adabka laga qoray akhriya daraaseeya rasaa'ilka aad u akhriya culummada salafku dhaqankoodii dabagala siiradooda akhriya siiru saalixiin waagadan waxaad baranaysaan khuluqa wanaagsan wuxuu yahay qiimihiisa sida loo raadsado si loo ilaashan lahaa asaaskiisuna waxaa weeye ummaddood dheefiso dhibkadana aad ka xaslato koodana aad u dulqaadato inta haddii lagaa helo wixii kaloo dhan waa iskeenaya mucaad ibnu jabal baa inuu safro damcay socdaal baa soo galay wuxuu nabi allow waan safrayaay nin safrayana hadda wax kastaa iska qabsan karee ii dardaaran buu nabi wuxuu uhi ucbud allaha laa tushriku bihi shay-a ilaahay caabud adoon u shariig yeelin ilaahay caabud keligii hanu u shariig yeelinoo cibaadada ilaahay uun ha la wadaajinin makhluuq rabbi waxaa ugu darin keligii u gooni noqo asaga u dhib iyo dheefba la aad xunabi allow intaasi waan gartay wax iigu dar waanada iyo dardaaranka ii kore zidni yaa rasuul allah nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam idaa asa'ta fa axsin makuugu darahaa bini aadan baa tahay xumaan baa kaa dhici waad gefi ma gafa waa allah subxaanahu wa tacaala waad gafaysaa haddaad gafto oo dembi kaa dhaco ama aad furma seegtayso fa axsin wanaag ka dambaysi wanaag la imow hawshaa waa dhacdo ha dhihine ilaah wixii iga dhacay ii cafidheh waa halka waad ku khaldanto u noqo walaalo waan khaldamay siba wax iga noqdeen raalli ahow waa kuu soo hoyday wuu iska sii darow kugu sii xanaaqay war naga tag horaan maxaadna noo haysay waxaad noo haysay gaadhiga u dhig hadhihi cirka la aad waa inaad tidhaahdo aad suulisaad la doonaya ood barto aad barido oo sabaansabto idaa asa'ta fa axsin wuxuu nabi allow ii kordhi waanadaasi wax iigu dar qaala istaqim walyaxsun khuluquk istaqim toosna uu diinka ku hagaag dabeecadana wanaaji buuri dabcigaaduna ha wanaagsanaado saddexdaa qodobana ugu dardaarmay towxiidkii buu ka bilaabay ilaahay keligii caabud bashar baa tahay haddaad gaftood khaldantana wanaag ka dambaysoo khaladka ka soo laabo saddex wanaagga aad samayso ku toosnow hana ka leexanin weligaa dabcigaadana wanaaji mucaamalada basharka iyo makhluuqaadkana iska hagaaji abi dar waad garanaysaan asagoo nabi allow ii dardaaran buu ittaqi illah xaydu maa kunta وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وخالق الناس بخلق معاملة الناس جامعة لك قبحة دراسات بلغ سمية نول با ضدك دنتك حرام بالروح الرادية وحال الدون يا مسلمين باتين ولا لاتين الله يسكوكين حري عقيدي إيمان بايدين كردحية أهل باتين المقادير باتين إن الطبيعة وناجسات خلقنا وناجسان دبع سناتان اسو نحريستان اسو دنقتان ان لسكو تيغنين اون لسكو حد قدبين نبي عليه الصلاة والسلام وحال ويدي صلاة نبي الله تيبا افضل بدن او صدقة تيبا افضل بدن او مؤمنين تانين و ايمان بدن بالويدي صدح لا سؤالات بالا سو دبا نبي وحول الصلاة وحا افضل بدن طول القنوت صلاة و استاقدير او قرآن بدن باو قيمة بدن صلاة انتي لو يستاهي وقراءة وناقصن روح وكو آخريو وتدبوريو ووقت أوسيو وتاقنادا وفضل بدن
صدقة وحا أفضل بدن وقيمة بدن وحلا بحشو جهد المقل نما وحبا هينين وإسكا صبولة أو تبرير ددالكي لو بقولوا شيء بعد صويه شيء الله أباها نبى مغان الله كله كنتم بعد كسيس قرابتنا كنتم بعد كسيس بقول هذا اسكو فرسمي وجهد المقل محانا ربي حين هي نغا بقاجو دمانا إن محانا هنا ورنغا تكلا مرة ولا قاعد درن ياي ولا قاعد ليتا نبني بوكليتا ننن بوداما صدقة قمنا بدو تصيسه أخير بدن وجهد المقل نين صبولة فقيرة دذلك وحو كبعي كان أسيقو غني هادي بطبو وحكسو درهايا لكن نين كان انتو لابد بقول تري يكون كبعينيا لابد بقول الله سيقو مركو ربا يسانكو في الليل ودذال كوني ما دقين بيدين سما يكون مردقو نين كان هل نيف ولا سي دقن وايا ترى ادي ما دقناي هل نيف وغي نينكو في الله وايا كدين جيلا ما دقهاي وحير نينكي wax ka bixin waaya hadda wax badan bixin maayo سبق الدرهم 1000 درهم وكي صوبانو يري هل شيلين با مرق قارقود وحو ka khayr badan yahay مليون كون شيلون مسكينه الى هيدرتو u bixiyo oo u baahan yahay ayaa ka fadli badan nin xoolo ay ka bateen مليون u dhiibay oo kibir iyo halaga sheegay iyo hebel baa baxshay iyo haranbay buu ka qayb qaatay hal lagu yiraahdo ku bixiyay nabi wuxuu alayhi salatu wasalaam markuu ilaahay bariyo waxa kamid ah baryadiisi allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi nabiga ilaahay ka bariyay allah uga maqratika ay ala khuluqin azim allah toosiyo edbiyo nabiga rabayay ومع ذلك هو باهيا وإنه شيغيا اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي إله سيدات هو ناجسي مقال كي يقاب أبور كي بني آدم لنبي آدم أقول حسنا رجنك أقول حسنا وعتال في عنبوها إله سيدات أبور كي أتوسيسي إذ أقول حسد أبي شيء إله طبعي كان إيه هجاج إله كبر إذا نضوي ديستان الله بحيا وحول با الله وحول با بحينيا شيء والبا قعنتي سو ku jiraan ee rabbi wuxuu ku adag uusan jirin shay walbana uu fuduud yahay weydiista in dabiicada ilaahay idin wanaajiyo annagana ilaahay noo weydiiyo Allah idin barakeeyo hawshana ha lagu dadaalo saxaabiga la oran jiray haani abu shurayh wuxuu nabi allow dabiica wanaagsan iyo tilmaan nabigu qaab kale oo ugu dhigo wuxuu ku yiri an tusallima ala an-nasi وأنت طليق الوجه وين الأمة سلامته قعان صارته هذا وجه هذا فرني وبشاشة وموصوني قل يا مركز سلامته أي كوكواني مال إن باكون نقول سوق فورا وين ده استوى دقيقة وين كفيرين نينين أدمودي هو يدي أبينا دشيب كسلام هذا قعان تكوسو تاجنا فرم ميدو ساق وقوله سيدا سوق كتابنا يسالها سبعان كوسلام ماي كوا محيدين كباين حسن الخلق بين كربان نضد الخالتان أيضا حناقين نمان صاحبنا يوادو يقول هذا المحل وقال حتى مقاصه وربحه سلام سان نعيب سلام سان نعيب الصور والطبيعة الحية هاي كنا أصنو سلام الحية هاي سلام الحمودنا والطبيعة الحية قل لقدوي نبي وحقول عليه الصلاة والسلام أن تسلم على الناس وأنت طليق الوجه ضدك إنها سلام تأذو وجه فرن مدى وجه وأفرا إنها مصوتان فرحضان راين روحك وسو دويزان محيدين يلي أنت هدات طمي سقوليها سكا عاي وذات كو خفيفي كلي وبريها يقول محاسكا دول عضين محبوبة ما تسكحها واحد جارين برين كم يا واحد جارين دول قاد بك هكا بانتا ورصدقه وي أجري خوان قروب سان دمجر إنها تراضي كاربتا عرب كيني أفكينا وناقا يا سماها برا وشينا فرا ومدى وحاتري كرتان ترى قعنتينا وحبحنتا برا عروتنا كو تربيية وحبضان بعض وقبح سنة آخرية أدون رقنا أدون واتكيه ليسان لبعض آخرنا واتكيه ليسان وذلك أبو شرح حتى أنكشكين إن هاني يوحونا بالله وحديث شكتا حدثني بشيء يوجب لي الجنة نبي الله ويشك شيء هدان سميه أن كل رقم الجنة واجبني أو يقصب تينا الجنة قالوا
وسؤال علوس نبي حول موجب الجنة جنة وحا واجب صوماها إطعام الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام وصدح ذا القضب إطعام الطعام ضدك باهان وحسيسو وقوديسو ووحا وقبان كرتان الله قبض هذا أنت إنك الرجارس كتكتان قوليها أنت جرد بخارة راشين كور الرسان لو مقسم مالك كرسان يجوك راشين كرسان ومساكين تا قضية قرعود ديار رسان محاولوا سنة كويس قوليها أنك نعستها شين علينا بحيان أتكاتا لغا يابا لكن جوان بوشا ويدين سينيا جوان بروا لغيه لي كيش سنكروا ويبحينا يعني لابا بيبو سريد جريقان لباتنا وطمالا واتكيريس مطبخ يار هداد مساجد دا كسميسا وقيب تاسو كلا مطبخ لغا سمي يا قاحوين لغو xunteeyo iyo daaqad masaakiinta raashinka laga siiyo raashinaad karisan ma waayeysan kuuga iyo dabaaqiinta wax karinayana mushaarkooda bisha wax idinka bixiyo waayimaysa dhowr boqol oo miskiin wad ku filan lahaydeen xirta meel ay istaagtala dugsiyada aroorta u soo kalahayo madaarista aadaya meel ay luqmatul ceesh ka helaan oo ay ku asturaadaan oo axadna ugu manna sheeganin ay heelahay ومشروع يرو اسكاد بيار ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا وحي مسلمين لو اماني قال كي محبوس كا وحي لسين يبا الهي نو امانايا اسيركو واي اسيركو وا قال حرب لو قبتي اسو قالوا هدنا لا دغالمay با hadii la quudiyo la wanaajiyo ajir laga helaaya qadiyada mashruuca yarka wadaad reen Yuruban kala hadlay wuxuu waan qabanaya gaari dhanbaan u sameeynay wayna muusan qaban مساكين حافظها كل شلنا الرفاضة هاي أرورتي قبل عن شيء دو سوقها هي ويكبد بادي لها هي خرج بني جماعة بحير مسجد والبا معد والبا قيب يرى مطبخة يقع وين هول يرى لو عشية لو قضية كسمية راشين ومضو كريم راشين كلا قرن لها هي جالس لبنكم يلعب بحين وانو با العقد وين الدفتاح وراها النور وينو الدرين لكن بخار كذاتك جوان كجيت إنك سماله وقرني وانا كاش نسين ماي الله قاطع لباتن لترقاطه واودي بيرت نمك يدين كرل انا مين كا كارني اما قولي ان سو خيلي قاد سو كريسان سو يدين كرني لو روح لو قيبنيا اما يا مساكين تا لغا كينا شغاله قيبي اطعام الطعام جنه لو غلا جنه واجب افشاء السلام سلامته لباهيو رورت مكاد غورا ككلا الى ميشا دغيس مد الصلاه ما عليس قويسا لبا ساعة با طلبان كدر ضلميسا او عن تربقش يا باطل يا دنب كو شيغيس روح هاد مرتبه سلام قاع كسي صدن اجر لغاغا قرو دور كونو اجر شقيسو وحسن الكلام وهذا بيت القصيد هذا الوناكسن هذا الكل وناجيو عربك هذا ان برتا لربا وناك ميل ولي بلايا لغا فيلهايو ان عسى ان يكون خيرا بلغا دوني سلف وحي كشيكي مصروفه وحي كشيكي قصه طريفه وحو يدي نين ريميا اجرو ميل باديه دغن markuu meel dago jeeska qayrada gooniba uga dagay jiray reerku markay rimi waa taqaana jamaaca loo dagaa qayradan baa meel dagaysa ninka gooni u dagana gooni buu dagaya marka meeshan ay dagto agtoodu iska dagi jiray wuxuu lahaa buuri ay iyo dameer iyo digaag buu lahaa laakiin nin saalix oo qiimo badan buu ahaayo carabkiisa wuxuu baray hal iyo goor wax wanaagsan oo ka hadlo asoo meesha iska dagan يا هبينها كميدا انتي دوعة صورة دي بيدياكتو دنك عنتي حالي ودادو دقاقي وإبر هي دوعة كفر علات عسى أن يكون خيرا عسى أن يكون خيرا إنا خير بالنوت على غياب ورما دقاقتي صلاة النوت زي فجر كنوك عيني سيال ليلة هي عسى أن يكون خيرا عسى أن يكون خيرا وحي الكذب هذانا هبين لبعض dameerkii uu ku ranahayay aqalka haduu goor biyana ku dhaansanayay beertan uu ku adeegaad ku aba dhurwa ka cunay waxa la isaaq xalayna dameerku dhurwa ka farax asaan yakuna khayran habeenkii saddexaad aygi ilaalin hayay waardiyaha uu ahay tuugta iyo balaayada wahwaha ilaalinayay ayaa asaguna baqtiyay asaan yakuna khayran markii loo sheegay arrinkiisu wuxuu baray wanaag wax wanaagsan inuu yiraahdo maxaa dhacday ilaahay meeshu wax ka wada haday aduu garan maysid in rabbi latiifun lima yashaa weeye habeenkii dambe col soo duulay
عول كريري بدول فريستي وشنقر دقيست ماشي أي كوه لها أما ضمير كقاق لها أما دي كويق لها أي كفريستي ريري هرم بأبر لقى دقي ضد الدنيا ولا مرد أصقينا وذات كينا إيه رير كيسوي بدبادي ضمير كورام وحكى فرح شيء الرواع دقيقتنا يا عني ضوع ايجن واسك بختي واحد شات شو صوت شيغال لواي ولا دغيس wax shan qarin mala wiiq ma jirto qaaq ma jirto waa ma jirto asiga waa badbaaday reer kan la ibr asan yakuna khayran arabkina waxaad bartaan ereyga wanaagsan al-imam ibn Mu'ayba wuxuu ka sheekeeyay qisada xamarta ibn Ziyad Ubaydillah ibn Ziyad iyo ninka qiimaha badnaa loo oran Safwan ibn Muhriz Safwan ibn Muhriz baa u tagay Ubayd ibn Ziyad markaa waali ah way sheekaystaan horana waa is yaqaaneen dhaqaale xum uu ka sheegtay 2,000 dirham buu soo siiyay oo lacaga fidaa guriga buu la yimid habeenkii baa mid tuuga intuu soo dhacay iyo 2,000 dirham baxaday islaantii walaadku waxaa leeyahay Safwaanow lacagtii tabiinada dawladdu soo siisay shilin kama yalee waa la xaday xasaan yakuuna khayran xasaan yakuuna khayran islaantu way baxana waxay tahay maxaa khayra biilkii ma jiro xoolii lagu kala tag meeshan la isgabaaburay baad leedahay xasaan yakuuna khayran ibnu Ziyad baa warkan boqol waxa la wadaadka lacagtana waa laga xaday asaga islaantiisina meel xun bay kala mareen xasaan yakuuna khayran buu yiri islaantana hawsha waa qoonsatay 2,000 dirham oo kala hadana soo dhiibay 2,000 dirham markii loo keenay iyo tuugi ciidanka ku maqnaa soo qabteen labadii kan waa la soo celiyay meeqay noqdeen 4,000 dirham buu isku helay xasaan yakuuna khayran إلهي با مامولك إسكاله عربكينا وناقي سماها برا وحسن الكلام نبي حول عليه الصلاة والسلام لو مسلم اسمه سلامان اسمه عن ساران إلا هذا السلامة دم يقول بالله دافع أنت عند اسكوها الناس السلامة إنه والله سيرتها محد كبر هذه حالات ذكر رسول نبض ما دم يقول هو بني سيدا جيت كعرين سقط عادته يعني قدام بيجي كاد اللي هو بني محاك فيها صادرت جماعة من السلف روح مركز السلامة دعانت يهين جرين إلى أسوق ولبح ويهين جرين النبي قلنا سيدا سوها عليه الصلاة والسلام كيس عبدك الشيكية النبي قدان سلامه إلى أنه دعانت عن لبح إنه ونهين جرين محور النبي قل ربا إن حرت صحابة الله دم بدافع ودم بيقول له هو بي مركب فراهن لسكون مدهي كون المودين لسكون صلاحة هاي يكون لسكون حتى يسوي توجيه سبع عن سو سلامة أن يان لسكون شفارين كون مركب كون سلامة عندك كتشبين باجرة وقربك كوجين هيا أما حقوق ذو كتوس هاي كو مرق شيغان لما ربا سي وناكسون اسلامنما اي سلام قرب كان اي جبينين سيدا ادو wax itaabanahay itaabana si fiican la soo salaam khayr baa ku jira ajir badan baa ku ilaahay wada ku barakeynay asxaabu rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam waxa la yiri markay kulmaana way salaami jireen haday safar ka yimaadaan way isqoorqooreysan jireen mawaddiya mahabba ku jirta wanaag way waa tabiica wanaag nabi wuxuu alayhi salaatu wasalaam laba arrimood qof muslima kuma kulmaan قف مؤمن لبا أرمتكم كلمان بخيل نميو طبيعي حمو البخل وسوء الخلق لبا هذا قدر سطو مسلماتي دي بسكو نقو لبا واد كغوين كرتا هذا اسكا غوين حتى واد اغاسيمي كرتا عيبته ولا ودليه بخيل نمدا هذه طبيعه حميده هذا ان اما اغاسنت اود قريس اود هور استاغتو انت عابين كرتا عابسا لا دونيا والله دغالانت كودالا دمرينتا أضيق يقلب سنانتي يضفطفت إسكا إلالية دكانانتا دمرينتا دبع سنانتا مسلمينتو لو دبع سنادو وإلهي باللغو دوادا إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله واتقرنيس إلهي وادمرية ومدي سوونا حريستا ودبع سن وحون الجعلية وحوى البئين رفقي وناغلو وضو وعذا أخاك برفق عند زلته فالرفق يعطف من يعتاده الزلال ولك ددوانيسو سترتيب اوانه ستروح او شيء هكو حد قدبي استر عيبهيسا قبنمدو واهل نمدا وولال نمدا وطبعي وناك او شاديات قلبك هلوغو هيو الهنا لغا عبسدو ولا لا هلا بدسدو ولا لا هلا بدسدو اصحابته هلا بدسدو صاحبته هلا بدسدو سلف وحورن جيرين استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة ورولا لها يا صاحب هذا بتصدم حاجة لي قف كستو مسلم وصاحبته أو ولالك لله
آخر وكون شفيع قاضي أدو طبع حماد أنت مالك وحر حدي يا الله بودات باطتك كوضتا أنا مثلا كن بان صاحب الله ولا لله ما قد شفعنا آخر إلهي كن استكثر مع الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة مؤمنين تي ولا لا يا صاحبتي أهلك محاكوب بدين كرامرك محاب بدية حسن الخلق باب بدينية هذا طبيعة أنت جيت بتسوق حري قول بتسوق حري وحكوا أقمر مجرو طبيعة هذا بتدخل عن كارد حصاريس ننقف المرجع وحرق لما ستانا النقنيس مركا حسن الخلق أيا ولا لا هي أهل كيدين بدينية ومدنا اسكو وضيه آدي أنت كجيل للمسلمين تينات كن حسان أما أطباتيسان أما أطبستان سلف قارطو حين لقى عليه حق دور كي مؤمنين تحق دور ريان إن يجاهدان قريه هيجا قف قسمة ككرين ماي ابن السيرين من كلون تابعي محمد السيرين أبو بكر والقرن ليس قريه كلها مقالة البصرة والدجانا ما أقولين وككرين ما يهودي أهين أما النصراني أهين باقي دنبال الجواز ده ابن السيرين عالم الواطاي صحابة الرحالي قريه هذا مسلمين وما أقولين كريستان واسد أو الدجاني وحول مياو بشو مركز يسيق جبتها هاي كيلوين كيوان الرصدا نيك قريه كريستان ما هنقصوا بحوور نحا قال لي أنا كان نحيان ربع وقف مسلمين وكان نحا مرة بول كده زمارة إنك كده أسكب بحين كري لبعتني عشان بشو مكان يقعدوا استرس باخد هاي كده حكيت كده دونتا أما هلي ويدا بيش الشنط يقول أما لقى سارة مرجو حولي منك أهل ذمها أي جزيرة بحية يهودي النصارى ذا هذا ينحى عيانيه هدول يكر كل عباية وطالع لكن قف مسلمة أنت نقول ككيري هدو كرا مركو أنا كده الدنيا أنقص صبح يجنح حمايه إني أكره أن أروع مسلمة وحن كهانية أون دبسني قف مسلمة إنه يجنحه أما يدبسده أركتي ذا فولكي وجهي وكنحه هلقا السلف كتاغي قولوا أسوق وليه أو حقي سوء راتني وكرد أولها ودوناني وحكبقا يوقف مسلمة إنه كان نحيه إذن كونا لغاية با إنه أشقى تكتان با لباتا مسلم كان نحين مسلم هبل ما أنت وكسفر عشان ميل بان سارك شقاوات كده قريسان إذنكو وعيبتنا كمتاي أهل لماذا هلقود دالو إلهنا لقى عبصدو وأدما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته